golaha shacabka ee baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya waxaa ku kulmi doona dad siyaasadahan aad isu diidan, kuwa dacwo isu qaba iyo kuwa kala taabacsan siyaasad madani ah iyo mid militari ku dhisan. nuxur badan lagama filayo baarlamaanka soo socda marka la eego dadka ka imaanaya gobollada qaar, balse walaaca ah inuu si madani ah u doodi waayo ayaa xoogan. berri magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu dooran doonaa dhowr kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka. kuraasta la dooran doono berri waxaa ugu xiiso badan kursiga Hob 138 iyo kursiga Hob 40. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la filayaa inuu berri noqon doono mudane ka mid ah golaha shacabka. laba xilli doorasho ka hor Warsame ayaa ku fadhin jiray kursigan. wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb waxay sheegayaan in inta badan musharaxiintii raadinaysa kursigan inay Cabdiraxmaan u tanaasuleen kadib kulamo guud, kuwa gaargaar ah iyo culays beesha dhexdeeda ah oo xubnahaasi la saaray maadaama ay beesha iskale kursiga Hob 138 xooggoodu isku raaceen inuu Cabdiraxmaan matalo. xubnaha tanaasulay waxaa ka mid ah sida ila muhiim ay noo xaqiijiyeen Siciid Nuur Gariish oo kursigan hore ugu fadhiyey iyo Cabdinaasir Cabdi Caruush oo ka mid ahaa musharaxiinta ugu culus kursiga. wariye Xasan Cadde oo isna ka mid ahaa dadkii raadinaya kursigan ayay wararka qaar sheegayaan inuu u tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. horey waxaa uga tanaasulay kursigan Jarnaal Indha Cadde oo isagu u tanaasulay Cabdiraxmaan. qofka qura ee weli diidma ku jirto waxaa lagu sheegay inuu yahay ninka la yidhaahdo Taardhuleed oo wasiir ka ahaan jiray Galmudug. xubnihii ka tanaasulay kursigan ayaa maanta qaar ku soo laabanayaan magaalada Muqdisho. waxyaabaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur saaciida waxaa ka mid ah gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed oo markii hore ay Cabdiraxmaan isdiidanayeen balse arrintooda la xalliyey, kaasoo hadda si weyn uga shaqaynaya inuu Cabdiraxmaan ku soo baxo kursigan. berri ayaa la dooran doonaa kursigan sida uu qorshuhu yahay. kursiga Hob 40 waxaa isna la filayaa inuu berri qaato Cabdulaahi Aadan Kulane. ninkan ayaa si uu kursiga u qaato waxaa baarlamaanka Soomaaliya uga baxay Faarax Cabdi Xasan oo kursigiisii Hob 53 koota dumar laga dhigay. Kulane inkastoo loo haysta eedo badan intii uu joogay taliska Nisa, haddana inuu ku soo biiro golaha shacabka ayaa wax weyn u goyn karta kooxda madaxweyne Farmaajo. culays badan kama jiro kursigan. xubinnimadiisa ayaa ka dhigan in golaha shacabka ay imaan doonaan inta badan xubnihii Farmaajo u adeegsaday siyaasaddiisa xoog sheegashada ku dhisan 5 sano la soo dhaafay. horey waxaa golaha shacabka ugu soo biiray Saadax Cumar Xasan Saadax John iyo Yaasiin Cabdulaahi Farey oo iyagu ka mid ahaa shakhsiyaadkii Farmaajo u adeegsaday caburinta shacabka iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan. kursiga Hob 40 ee uu Cabdulaahi Kulane qaadanayo isna berri ayaa lagu dooran doonaa magaalada Dhuusamareeb. inta aanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdulaahi Aadan Kulane berri ku wada biirin golaha shacabka ee baarlamaanka soo socda, xalay waxaa magaalada Dhuusamareeb ka dhacday israsaaseyn u dhaxaysay ilaalada labadan xildhibaan ee soo socota. israsaaseyntaas oo aan khasaare geysan ayaa wararku sheegayaan inay ka bilaabatay diidmo la xiriirta marista wadda ay degganaayeen ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur. lama yaqaano qolada xabadda bilowday, laakiin waxaana loo xaqiijiyey in labada nin ee Cabdiraxmaan iyo Kulane inaanay waxba kala socon arrintan. xaaladda ayaana markii dambe caadi ku soo laabatay. maxay kula taadiga